amniga hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa si weyn loo adkeeyay iyada oo la geeyay saldhigyo military oo ku yaala dhulka hoostiisa. Mas'uuliyiinta dowladda Iiraan ayaa sheegay in weerar kasta oo ka dhan ah Ayatollah Ali Khamenei uu yahay weerar diimeed oo lagu soo qaaday shacabka dalka Iiraan. Mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale ku wargeliyay ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe inay macsalaameeyaan eheladooda haddii dowladda Mareykanka ay khalad yar ku kacdo. Tilaabooyinkan ayaa ka dhigan in dowladda Iiraan ay diyaargarow buuxa ugu jirto weerar kasta oo uga yimaada dowladda Mareykanka iyo Israa'iil. Dhanka kale, Mareykanka ayaa ku hanjabay inuu weerari doono Iiraan iyadoo suurtagalnimada weerarkaasi uu sare u kacay saacadihii la soo dhaafay. Markabka diyaaradaha dagaalka xambaara ee Mareykanka ee loo yaqaan Abraham Lincoln oo ay galbinayaan maraakiib dagaal ayaa soo gaaray bariga dhexe, taas oo sare u qaaday suurtagalnimada weerar ka dhan ah dowladda Mareykanka. Dowladaha Sacuudi Carabiya, Qatar iyo Cumaan ayaa dhankooda wada waan looga hortagayo dagaalkan, iyaga oo sheegay in haddii uu dhaco uu waddo xun u horseedayo bariga dhexe.